haddaba daawadayaal caqabadda ugu horreysa madaxweynaha dalka turkiga hor taalla waa sida u xallin lahaa su-aasha kurdiyiinta. waxaynu ognahay jabadaha kurdiyiinta inay yihiin kuwo weerara turkiga kaga soo qaadaa waqooyiyada dalalka ciraaq iyo suuriya, balse madaxweynaha dalka turkiga waxa uu ahaa madaxweynihii ugu adadkaa markay noqoto la dagaalanka kooxaha kurdiyiinta BKK-da iyo YPG-da ayaa waxay ahaayeen kuwo la dagaalamayay turkiga wixii ka dambeeyey 1979, balse madaxweynayaashii ka horreeyey madaxweyne Erdogan waxay ahaayeen kuwo wada hadal iyo si fudud ula dagaalama kooxaha argagixisada ah. madaxweyne Erdogan ayuu ahaa madaxweynihii ku dhawaaqay inuu dagaal rasmi la gelayo kooxahaas, wax wada hadalana aanay shaqo ku lahayn. wixii xilligaa ka dambeeyey waxa uu baarlamaanka dalkiisa ka meelmariyey kooxaha in loo aqoonsado inay yihiin kuwo argagixiso ah. sidoo kalena waxa uu ka dhaadhiciyey dalal badan oo kuwa caalamka ay ugu horreeyeen midowda Yurub, dalka Maraykanka, Australia iyo weliba dalal kale oo badan. dalalkaasoo dhan ayaa waxay u aqoonsadeen kooxahaas inay yihiin kuwo argagixiso ah. dalalka farakutiriska ee midowda Yurub ka tirsan waa weli u aqoonsan kooxahaas inay yihiin kuwo argagixiso ah. waxa ugu dambeeyey dalalka Finland iyo Sweden. 2 bilood ka horreeyayna dowladda Finland u aqoonsatay ururadaas inay yihiin kuwo argagixiso ah. haatanna dowladda keliya oo dhammaan waa tan Sweden, waana sababta madaxweyne Erdogan uu dowladda uga hortaagan yahay inay ku biirto gaashaanbuurta NATO. dhawaantana dowladdaas waxay noqonaysaa mid u aqoonsato kooxahaas inay yihiin argagixiso. madaxweyne Erdogan waa madaxweynihii ugu awoodda badnaa uguna wanaagsanaa haddiiba uu jiray madaxweyne Turkiga oo ka adkaan kara kooxaha. dadka Turkida ana kama shakisana madaxweynahoodu inuu ugu dambeynta ka guulaysanayo kooxaha argagixisada ah. kooxahan argagixisada ayaa dhibaatooyin waaweyn ku haya Turkida. marka laga reebo 50,000 oo qof ay dileen wixii ka dambeeyey 1979, sidoo kalena waxay is-horistaa ku sameeyaan dadyo badan oo doonaya iyagu inay hanti gashadaan dalka Turkiga, iyo kuwo weliba iyagu doonayay inay dalka u dalxiis tagaan, inagoo weliba og dalka Turkigu inuu yahay 5 dal adduunka ugu horreeya marka ay noqoto doorashada dalxiisyada. su-aasha kurdiyiintuna ma noqonayso mid ku adkaata madaxweyne Erdogan.